haddii kale guryahoodaanu tegi doonaa inanka yar hooyadii nabarkaa gaadhsiiyey gurigii hooyadii baanu tegi doonaa dabeetana hadhow haddii ciidanka qaranku isaga hooyadii difaaci doono halkii hooyaday xaqlaanta ku mudatay iyagaa ka jawaabi doona anagu dhib nagu filan baanu qabnaa maanta intaa iguna waxaanu dacwadu nahay oo aanu washkatoonaynaa oo aanu cid ka filaynaa in ilaamihii cadaaladda ku shaqada lahaa noo yimaadaan annagu taliska qaranka ma tegi doono halkanaan ka sheegaya telefoonada igu soo dhacaya taliska qaranka kaalaya uma tegi doono taliska qaranka dhexdiisa waxba layguma yeelin taliska qaranku laantii u sarreysay ee boolisku ahaa waananu dacwooday jawaabtan kala kulmayna waanigii idinla wadaago waxaan kala kulmay in moobilkaygii muhiimadda la siiyo oo ana hooyadayda ma tagaysana la eegin gogolaantan ku jirnan la eegin waxaana cunayana la eegin dhulkiina la jidayo kaa farahayga ka yihiin dhamankayga waxa ku dhacayna aan la eegin jirkayga qaybaha qarsoonna ay rifeertadayda ku cad yihiin marka taliska بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته وحن آدو سلامية أصحابتك وحرن شرن كيك فردوس تساني وحن هاد علينا يا سي إن بعادي أهين أصحابتي هرا وحن كلوا هاد علينا يا أصحابتي حتى عصب يكو صبيت شرن كا يسي لايكتا يسي سبسكرايبتا إن دعوة إن كستو عاني دمايسن وفيديو عاني دمايسنين من وحكا سهل كسر لقلا صعدا وحن كلوا mar waliba aan u baaqaya asxaabta soo socota haday arkaa clipkaygan waxa aan ka codsadaa waxa weeyaan inay subscribe isiyaan like-na isiyaan si ay dad kale oo fiican sidooda ah ay helaan share-tana waa xaqiina daawashadu waa xaqiina marka waxaan ku leeyahay subscribe-ka halka dhab ku siiya gambaleelkana taabo si ay ku soo gaaraan fiidiyowyadayda runtii waxa weeyaan habeen fiida caawa inta badan fi habeenkii baan soo galaa markay carruurtu iga seexato waxaan jecelahay inaan ka hadlo waxa ay tahay oo aan maanta jecelahay aada uga murugooday oo aan maalmahan oo dhan aan waqti u la'aa Hoodo Maxamuud waxaad u garanaysaan Hoodo Maxamuud Nuur Hoodo Grace ayaabaan ka xumahay iyo Suleekha Dheer oo hooyadeeda oo maamaday hooyaday saaxiibadeed ah waxaan aad iyo aad uga murugooday ama aan aad uga naxay waa sida ay ula dhaqmeen ciidankii xaafadayada ciidankii jaarkayaga ee Qudhac Dheer runtii wiilasha yaryar ee Qudhac Dheer askarta iyo dablaha ka ah wax badan baan uga soo taagnaa anuu intaa waxaan ku leekaaday Hargeysa Qudhac Dheerna maanta aqoon fiican ayaa baan u leeyahay askarta joogtana aqoon fiican baan u leeyahay askarta joogtana aqoon aan inaba caadi ahayn baan u leeyahay haddaan horta waxaan aad iyo aad uga xumaaday inantii Hoodo Grace ee heesaha iyo suugaantuba ku sheegaan quruxdeeda in tacadiyo Somaliland dhexdeeda oo ay abaal badan ku leeyihiin in sidaa loogu garto aad baan horta uga xumahay waxaan ku raacsanahayna maaha waxaan kaloo aan aad uga murugooday oo aan uga hooyo la dilay horta hooyo la dilay leedahay inanka yar ee dhalinyarada ah ee hooyadii oo kale gacanta intuu u qaaday timaheedii jiiday iyo garbasaartii sodohdii horta ka waxaan leeyahay hooyadaabaad arki doontaa ama askari ah waa macirka ka soo dhaco maalin maalmaha ka mid ah hooyadaabaa saa laguga agjeedi qof kasta wuxuu dhitaystana uu helaa Suleekha Dheer hooyada iyo iyadu in badan bay aqoon isku lahaayeen haday hooyada iyo Hoodo Maxamuud Nuur ay hooyadeed aqoon isku lahaayeen anaguna aqoon baan isku leenahay waayo hooyada saaxiibadeed waa hooyada waxaan maanta sababta aan u hadlayana waxay tahay hooyaday saaxiibadeed waa hooyaday aniga i dhashay oo kale dhan walba wax baan iskaga nahay runtii uguma hadlayo markaa kaliya waxaan ugu hadlayaa dad wax kaliyaata waxaan ugu hadlayaa waxa ay tahay ama inaan inay hooyo haba dilaynaanta dhalinyarada ah ama ha iska celiso ama ha is dhirbaaxaan laakiin hooyada intuu jiiday nabarka halkaa madaxeeda kaga dhuftay
ee uu shalmadeedii waxaan kuri sharafteedii meesha kaga ciyaaray waxaan leeyahay waa wax ku sugi doona adigana waa wax ku sugi waa adna wuu ku sugi doonaa wiilal badan oo waxaan kuri cadhaysan baa ila soo hadlay runtii bilayskani waxaan ka hadli doonaa haddaba dhacdooyinkii laba dhacdaan anigu usoo taagnaa laba dhacdo oo u eeg dhacdooyinka hooda maxamuud nuur hooda garays ku dhacday laba dhacdaan usoo taagnaa markii ay hooda garays tiri way ila jaafaajirqeen aniguna waanu hadal baan isdhaafsanay muran baa dhexdeeda yimi gacantii baa ku xigtay waxaan walla waa runteeda sababtaanu idhi ma aha inaan goobtii taaganahay oo aan anigu samaynayo yacni aan attachment amaba aan maxkamad ahay oo aan anigu ku qaadaya askartii ciidanka laakiin waxa aan ogaa habeenada ka mid a oo fiida weliba habeen may ahayna maqrib baa lasoo tukaday cishana lama gaadhin waa maqrib iyo cisho dhexdeed ayaan inan qasabad haysatay oo aan saaxiib ahayn Fardowsa ayaan soo anoo dukaanka imi baan soo maray markaan dukaankii kasoo baxay ee aan soo maray inantii oo qasabad meelaha laamiga waad garanaysaan Hargeysa meelaha laamiyada biyaha lagu gadaa ee qasabada inantii oo qasabad gadaysa ayaan la fadhiistay sidaa kursi markaan ugu fadhiistay inantiina ay gambaryaduna agtayda ku fadhido oo aanu sheekaysanayno ayaa xaajiyad ciidana halkaasoo kale kasoo gashay oo weliba quracdheer ciidamadu iskuma jiraan iftiin baan arkay waxba kama sheegayo koodbuur baan arkay waxba kama sheegayo laakiin meesha ugu askarta inamada yaryar akhlaaqda darani ay ka buuxaan waxaa ka mid ah waa quracdheer anaana taaqiraya qiyaamahana la soo xaadiraya waxaa dhacday anagoo bartii fadhina ayaa waxaa soo dhacay gaadhi dhan oo gaari askara markii ay soo baxeen anu inta badan askarta ma jeclayn waan ka baqan jiray hooyaday waxay odhan jirtay markaad ciidamo aragto maxaad la waalataa ee aad u baqdaa waxaan ogahay ciidamada in ay bilaa naxariis yihiin nabaro aanan u dulqaadanaynin inay igu dhuftaan ayaan diidaya anu haddii lay xidhana isma waali jirin haddii xitaa iyagoo i caayaya oo kelmado adag igu leh ayaabaan anigu iska dhaafi jiray dabadeetana waxaa dhacday inantii markaan u imi waan inantii la joogo ayaa xaajiyadii gaadhiga nagu soo aagdatay markaa show markii hore 5 galabnimo loogu soo sheegay in meesha dagaal ka dhacay qasabada iyo agagaarkeeda in dagaal ka dhacay inama yaroo kooxina ay joogaan inama abu raadinaya muxuu naga soo doonay annaga intayna soo abbaareen ayay inantii oo timadaban oo timihii dabatay gabadh tima dhaadheerna isma qariso oo ay ilaa halkaa buuxsameen ayuu waxaani ma timaa mise waa fake saasuu inantii timihii u qabta markaasay tiri mar dambe hay celinin ajaanib baan ka ahay mar dambe hay celin waabuu celiyay mar labaadkii way kacday dhirbaaxay ku dhufatay استغفرullah dhirbaaxada waxaa ka horeysay way kacday waxay ku tiri waryaa mar dambe gacantaada hay celin anuu maciyaalkiis leenayaan maxaad iga soo doontay mar dambe gacantaada hay celin shalmadeedibu haddana naamaan kuu celinaya shalmadiibu sidaa u dhuftay markuu u dhuftay ay aragtay inuu shalmadeedii saa u qabtay anigu intaa waan ku dhex jiraa waan ma hadlaya anu askarta ma jeclayn runtii baa fiican aad baan uga baqi jiray ma jeclayn xabad bay iskaga kaa dhufanayaan qori dabadii bay kugu dhufanayaan kabtooda weyna qarigaba ay caloosha kaaga dhufanayaan markaa anu ma jeclayn anu waan aamusanayn waan qaboway kursigaygii baan fadhiyaa inantiibu haddana shalmadeedii saa u jiitay waa farduus ibrahim cige markaan arkay inuu inantii sidaa u jiitay ayaan ku war inantu waa inan bukaana oo sonkor qabta ha ka cadhaysiinin markaan arkay inay xaaladii xumaanayso ilaaheeday u qabtaa buu yidhi sonkorta big buu soo yidhiyo haddana inantiibuu sidaa u jiijito adigu yidhi naya raac gaadhiga adaabaan ku doonaya adaabaan ku xulaya waa buu jijiidu u gulguulay markuu gulguulu tureeyey ay dhagax ku dhici gaadhay inan sokor qabtaa ay markiiba dareemay qofka sokorta qabaa inuu markaba cadhadii ayaan iyadii gacantiisa ugu dhigay waxaan doonay inaan ka reebay inaan kala dhex galo marka kale inantii cadhootay sokortii ku kacday ayaaba iyaduna qaado dharbaaxay babka ka siisa
wixii xaajiyada saarnaa ee maanta dhanna fiirsanayay ee na eegayay baa mar kusoo wada degay inantii bay gawda ka saareen anigii waxay igu yidhahdeen car hadal wallaahi oo bilaahi halkay martay inaanu ku marin xaajiyad bay ku riteen aniga inan nimca abshir yuusuf la dhaho ayaa inantii ka daba tagnay markaan ka daba tagnay bahashii baanu tagnay halkiiba anagii bay nacaayayaan anagii bay na aflagaadaynayaan waan iska aamusnay habeenkiibay sidii inantii ku xidhmatay waa lagu xidhay markii lagu xidhay fiidkiibaa dhinan cabdiraxmaan la idhahdo inantan farduus ibraahim cige cabdiraxmaan ibraahim cige ayaan u tagay dukaanka aanu telefoon kula hadalnay gurigoodii baanu tagnay inantii waa la xidhay sidaas baa dhacday iyagii baaba raba in la baryo iyagii laftigoodii inantii dilay ee 10 nin gacanta saareen ee markii horena timaheeda ku gardaraystay ee ay 10 ku dileen ayaa haddana waxay rabaan nootaayo iyo sharci iyo dhidhi iyo inay intaas oo cisho inantu u xilnaad intaas oo cisho xilnayd nootaayo barya lagaga soo daayay baryo ayaaba lagaga soo daayay inantu waxay ku ooyeysay maanigoo dulmi u xidhan ayaabaad haddana ayaad rabtaan inaan idinkayga raali geliyo inantii way raali geli weyday oo biigina way geli weyday maanaa lay dilay maanoo lay dulmiyey maanoo kibir laygu soo doontay ayay rabaan haddana inaan raali geliyo oo ay 10 igu dileen oo markii horena igu gardaraystay ninkaasi i gardaraystay haye adigu iska dulqaado markaasay odhanayaan waa inaad sharci anagana raali gelisaa inaana dembigaa galay inaanad askarta la hadlaynin marka taasaan usoo taagnaa tu kale oo aan usoo taagnaana anaa igu dhici gaadhay anigu askarta waan ka baqaa ma jecli hooyaday way ogtay familygaygu way ogyiin aad waan ka baqi jiray laakiin mar lay xidhaa jirtay oo i dulmiyeen mar walaalkay oo iga yar mar kasta way xidhi jireen way dulmiyi jireen annagoo arkaynay dulminayaan oo ay kibir ku doonanayaan marka askar lagu kibraa maba joogta Somaliland baa la hargeysana maba lagu kibri karaa askarta way dhacdaa sometimes in lagu yaro kibro laakiin inta badan yaga dadka dulmiya hooda Grace hooda Maxamuud Nuur waxaan leeyahay waan ka xumahay walaashay waxa kugu dhacay ilaahay waxaan ka baryaa inaad cadaalad hesho hooyo ama maambaday Suleekha dheer waxaan leeyahay khabar yar waan ka xumahay eedaday waan ka xumahay aad baan uga xumahay waxa kugu dhacay waxaana rajaynayaa inaad cadaalad heli doontaan marka qulac dheer aanu si fiican baan u aqaanaa cidina iiga sheekayn mayso fiidiyoogii baa dheeraaday waxaan idinkaga tagaa waa walaashii Farduuso idin leh faraha nuxnuuxiya subscribe-ka like-ta share-ta iyo comment-igu waa xaggiina mar walibana sidaad ii barbar istaagteen muddada yar ee aan ku jiro YouTube-kana waan ku faraxsanahay intaa iyo inka badanna waan idinka fadhiyaa waxaan idinkaga tagaa waa fi amaanillah assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatuh